عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. maanta waxaynu bilaabi doonaa oo aynu qaadanaynaa waa training kan run ahaantii waa training aad muhiim u ah, kaasoo aynu odhan karno waa block 1 amba waa rugniga koowaad ee kambanigeena iyo shaqadeennaba ay ka bilaabmato. qofku trainingkan sida uu fahmo iyo sidoo kale sida uu qaato waxay ka turjumaysaa amba ay ka dhigaysaa qofka in noloshiisa inta ka dhiman inuu forever guulo la taaban karo iyo horumaro la taaban karo intaba uu ka gaari karo. haddaba diyaar ma u tahay inaad qaadato tababarkan? haddaad diyaar u tahay inaad qaadato tababarkan, u diyaar garow qaadashada tababarka. soo qaado buug iyo qalin, meel habiyo fadhiiso, una diyaar garow inaad training ka qaadato. waxaan filayaa inaad diyaar tahay ood buuggaaga iyo qalinkaaga kuu diyaar yihiin, diyaarna aad u tahay inaad tababarka qaadato. haddaba tababarkan maanta aynu qaadan doonaa run ahaantii waa tababar aasaas u ah ganacsigeena. meeshuu ganacsigu ka bilaamayana ay tahay albaabka ganacsiga laga soo galayana ay tahay taasoo ah waxaan loo yaqaano dreamka amba rajada. dreamka iyo rajadu waa waxaad kambaniga aada ugu soo biirtay. haddaba su-aashaynu isweydiinaynaa waxay tahay, waa maxay sababta amba reasonka ka dambeeyey inaad kambanigan aada kusoo biirto? kambanigan ma walaalunbaa kusoo biiro adna waad kusoo biirtay? in adeeraa kusoo biiro adna waad kusoo biirtay? ma saaxiibka amba saaxiibadaabaa kusoo biirto adna waad kusoo biirtay? mise waxaa jirtaa sir ka dambeysa kusoo biiritaankeed kambaniga kusoo biirtay? sirtaasoo ah inaad hadafkaaga iyo noloshaada aada isbedel taban aad ka samayso. saa daraadeed maxay tahay sababta aada kambaniga kusoo biirtay? hadday taasi kuu caddahay, waxyaabo badan oo kambaniga iyo shaqadiisuba way kuu caddaanaysaa. taasi hadday kuu caddahay, maxaad ka doonaysaa inaad kambanigan aada ka hesho? maxaad ka doonaysaa inaad kambaniga aada ka hesho, aada ka gaadho? halkeed doonaysaase inaad ka gaadho kambaniga? kambanigan forever living product waa fursad aada iyo aada u qaaliya. aynu ku tilmaami karno fursad keliya inaan odhan karin, inaynu odhan karno waa wax nolola weeyaan. haddaba forever iyadoo barbilow ilaa bardhamaad lagaaga waramay sida looga shaqaysanayo iyo guulaha laga gaadhayo, halkaad doonaysaa inaad ka gaadho. haddaba se maxaad doonaysaa inaad ka hesho? haddaba helitaanka aada helayso aada doonaysa inaad ka gaadho iminka aad kambanigan aada kusoo biirtay, waata koowaade hadafka kambaniga kaaga dejisani waa maxay? foomkan diyaarso, buuggaagii qalinkaagii kuu diyaar ahaa la soo kala bax. exerciskan haynu ka shaqayno amba layliskan haynu ka shaqayno, adiguna ila soco, aniguna halkan aynu ka wada soconno. ka koowaad waxa weeyaan hadafka kambanigan aad ka doonaysa waa maxay? micnaheedu ay tahay level halkeeya ayaa doonaysaa bishan hore inaad gasho. hadafka sidiisaba waxaynu ogsoonnahay in laba loo kala qaybiyo, hadafka dheer iyo hadafka gaaban iyo hadafka dhexe. hadafka dhow waxa weeyaan hadafka bisha iyo wiiglaha iyo sidoo kale maalinlaha, waa hadafka dhow weeyaan. hadafka dhexena 6 bilood ilaa sanad hadafka lagu gaadho weeyaan. hadafka dheerna waa 3 sano ilaa 5 sano meeshaad doonayso inaad gaadho inay kuu sii caddahay. nolosha choice amba doorasho ayaad leedahay inaad iska noolaato oo wixii kula kulmaad iska wado oo waqtiga aada u dayso, iyo inaad noloshaada bartaad doonayso aada u dadaasho, juhdi iyo tamar aad ku bixiso, ilaahay aada wakiilato, kadibna aada qorshaysato halkaad doonaysa nolosha inaad gaadho. haddaba haddaad waqtiga aada u dayso, waqtigu wuxuu u bedelayaa noloshaada si aad ku faraxsan tahay iyo si aanad ku faraxsanaynba, waayo waxaad adigu maamuli karto ood qorshaysatay maaha. balse hadaf dejintu waa waxaad adigu qorshaysatay ood ilaahayna ku baryayso inuu kuu suurto geliyo, tamar iyo juhdina aada samaynayso. marka hadafkaad ka doonayso bishan inaad gashaa waa maxay kambaniga? haddii aada isdiiwaan gelisay
waxaad doonaysaa inaad gasho ayay tahay qorshahaaga iyo balaankaaga assistant supervisor oo labada cc aad dhamaystirto. haddaad kambaniga ku jirtay ood assistant supervisor ahayd, inaad qorshayso sidaad u geli lahayd supervisor. haddaad supervisor tahay, inaad qorshayso si aad u geli lahayd assistant manager. haddaad assistant manager ku jirto, sidaad u geli lahayd aad qorshayso manager. marka qorshaha bilaha waa maxay? qorshahan bilaha marka haddii aad bishan assistant supervisor aad gasho oo bishan koobaad assistant supervisor gasho, 6 bilood kadib halkaa doonaysaa inaad gaadho manager iyo wixii ka sarreeya. marka iyadana halkaa ku qor financial goal oo aad iyo aad muhiim ah. goolkan waxaan u dejinaynaa inaad garanayso bartaad noloshaada aad u socoto. qodobka labaad waxa weeyaan financial goal. war dhaqaale maxaad doonaysaa inuu ku soo galo? bishan maxaad doonaysaa inuu ku soo galo? bishan waxaan doonayaa imisaad doonaysaa. ku xisaabtan bishan dhaqaalaha iyo levelkaad ku jirto isxisaabi. bishan haddii aan iibkaa sameeyo intee baan heli karaa? tafaariiq ahaana intaan ku helaya, baashin kale intaan ku helaya. marka financial goal qor intaad doonaysa bishan inay kambaniga kaasoo gasho, sidoo kale 6 bilood kadibna intaad doonayso inaad gaadho iyo levelkaad doonayso inaad gaadho. levelkaad doonayso inaad gaadhaan wuxuu ka turjumayaa dhaqaalaha bishii kusoo geli karaa. taasina markaad dhaqaalaha qorto waxay kula gaari doontaa daily activity amba qorshaha maalinlaha ah. marka qorshahan bilaha haddaad dejiso, qorshaha maalinlaha iyo qorshaha weeglaha ayaa isaguna sii daba socon doona hadhow. marka health and exercise goal. qofku caafimaad ayuu ku shaqeeyaa, caafimaad ayuu wax ku gaadhaa, caafimaad ayuu ku tamariyaa. kambanigeenana sidaynu sheegnay warbixinaadkan aad ku qaadateen waa mid ina siinaya hanti iyo caafimaad. caafimaadkeenana aynu ka shaqeeyo, hantina aynu helno. labadaaba si aad u hesho, caafimaadkiina in productiga isticmaalno oo productigeenan iyo wax soo saarkeena aynu isticmaalno, waayo waxaad adigu isticmaashay ayuunbaad ka warami kartaa. marka inaan productigiina ku isticmaalno kadibna dadka la wadaagno oo aynu sheegno, hadday noqoto Colgate, hadday noqoto caafimaadka, hadday noqoto productiga, kulli wixii aad productiga isticmaashay inaad dadka la wadaagto. exercise iyo jimicsi aad samayso oo dhaqdhaqaaqaaga, muruqyadaada iyo wadnahaaga iyo fitnesskaaga jimicsi iyo caafimaad arkad u soo qaado. spiritual goal. run ahaantii qofku haddaanu ilaahay ku xidhnayn, ilaahay aanu tala saaran, cibaadadiisu ayna adkeyn, waxyaabo badan nolosha uma suurta galaan. sidaa daraaddeed xidhnaanshaha ilaahay iyo sadaqa la baxa iyo cibaadooyinka dhan walba oo ay taabanayso iyo inaad xiriirkaad leedihiin adiga iyo ilaahay ay adkaataa oo mid kuu sahlaysa inaad hadafkaaga nololeed ay gaadho. markaa ruuxiyan iyo cibaad ahaan iyadana maxaa ku qorshaysan? inaan 5 salaadood jamaca ku ilaaliyo, inaan sunnayaasha tukado, inaan soomo, inaan sadaqa bixiyo, intii wanaagsanayd ee cibaadaaba inaad samayso. kadibna aad ilaahay barido inaad noloshaada isbedel taban oo wanaagsan aad samayso, inaad ka badbaado inaadan noqon gacanta hoose ee aad noqoto mar walba gacanta sare ee ummadda caawinaysa ee kor u soo baxaysa. family goal. kambanigan waa best ethical way oo loo qabto ganacsi. calashaan ganacsi dhaqan ka ugu wanaagsan ee abid la qabto weeyaan ganacsigan. forever waxay ku leedahay xiriirka aad leedihiin adigii familigaagu waa inay wanaajisan tahay. sunnaha iyo diinteenuna waxay noo sheegaysaaba xiriirinta familiga inaad ka helayso cimri dheer iyo khayr badan. marka familiga in la xiriiriyo ood waqti aad u samayso ood waqtigaad shaqaynaysa mooyaane waqtigaad familiga la qaadanayso iyaduna ku caddahay. educational goal. ganacsigan amba forever waa mid dhiiri gelinaya aqoonta distributorada, inay aqoonta distributorsku inay korodho, in aqoonta ay leeyihiin hadday noqoto kambaniga loo leeyahay aynu kambaniga u leenahay iyo warbixintiisa, hadday noqoto aqoon guud inaynu samayno. marka taasi waa akhriska kitaabka qur-aanka iyo akhriska macluumaad kale oo maskaxdaada kobcinaya, intaba inaad samayso. bishan inteeba buug baad akhrinaysaa, bishaasi markay dhammaato 6 bilood kadibna inteeyu buug baad akhrisay. wax allaaliya wixii aad kari karto. haddaad Soomaali garanayso Soomaaligaagaasoo keliya wax ku akhri, haddii aad Carabi garanayso Carabigaaga wax ku akhri, haddaad Ingiriisi garanayso Ingiriisigaaga ku akhriso. wax allaaliya wixii aad afeed ku garanayso
aqoon raadso, wax akhris badan baa ku siinaya inay aqoontaada iyo tamartaada iyo awooddaada kor u kordho. wax allaaliya wixii aad fahmi karto samee. haddii aanad waxbaba akhrin, dhegeyso waxyaabo badan, maxaadarooyinka dhegeyso, guulaha badan ee dadku gaadheen iyagoo soomaali lagu hadlaya ayaa jirta. taa isku soo kici, wax dhegeyso, wax akhri, sidoo kalena dadaal badan samee. mar walbana hamigaaga iyo hiigsigaaga nololeed ku dadaal si aad naftaadana u anfici lahayd, nafta faamiligaagana aada u anfici lahayd. taasi waxay ku siinaysaa inaad gaadho hadafkaaga nololeed ee barbilowga ugu hooseeya ilaa bardhamaadka inaad gaadho. qorshaha haddaba forever living product ma diyaarsatay? se intayn warbixinta iyo traininga ku jirnay ma kuu caddahay meeshaad doonayso forever? ma kuu caddahay sababtaad ugu soo biirtay forever living product? ma kuu caddahay maalinle iyo wiigle waxaad qabanaysaa? hadday kuu caddahay oo iminka aad diyaar u tahay shaqadaada, waxaan kuu ballan qaadaynaa inaad hadafkaaga nololeed aad ka gaari karto, waxaad doonaysa noloshaadana aad ka heli karto forever living product. laakiin taasi waxay ku xidhnaanaysaa waa sidaad adigu go-aansato, waa sidaad adigu dadaasho, waa sidaad adigu juhdi iyo tamar badan aada u geliso kambaniga. markaasaa daraaddeed hadafka iyo hiigsiga nololeed wuxuu kuu fududaynayaa sidii aad noloshaada meel badan aad u gaari lahayd, sidaad faamiligaaga iyo asxaabtaada iyo ciddii dhibaataysan aad u caawin lahayd, sidii aad adigu naftaada kor usoo qaadi lahayd. markaas si aad waxaasoo dhan u hesho, yeelo hami iyo hiigsi sare nolosha aad ka leedahay waa inaad garataa. yeelo hadaf cad oo nolosha doonayso inaad ka gaadho. sidii saa u helno waxaynu u baahanay dadaal iyo juhdi badan. waxaynu u baahannahay, waayo hore soomaalidu waxay ugu maamaaday hagla laaban xoolo kuma yimaadaan. isbedel ma imanayo ilaa yaad adigu isbedelsho. dhaqaale ma imanayo ilaa yaad adigu dhaqaale hesho. sidaa daraaddeed wixii loo shaqaysto ayuunbaa loo helaa. sidaynu ogsoonnahayna khayrku qofka kuma dhaco, sharku qofka ku dhaca. waxaad maqli hebel dhagax baa ku dhacay, hebel qori baa ku qarxay, hebel gaari baa la dhaca. waxaa waad maqli. negativeka iyo sharku dadka uu iskaga dhaca, laakiin khayrka waa loo shaqaystaa. maqli maysid hebel siduu u duulayaba jannada uu iska galay isagoon shaqaysanba. maqli maysid hebel isagoo iska fadhiya kiish lacaga loo dhiibay. hebel guribaabuu iska helaba dhisan oo nolol iyo faakahaysi buu hela. waxaa arki maysid, waxaa waa loo shaqaystaa. khayrka iyo wanaagga akhriya adduunyadaba waa loo shaqaystaa. haddaba hami iyo hiigsi sare yeelo, fadhiga ka kac. sidaa daraaddeed sidoo kale jebi silsilada ah waxaan ma qaban karno. jebi silsilada ah meel ma gaari kartid, hantiile ma noqon kartid, cid ma caawin kartid. intaasoo dhanba jebi. waxaad tidhaahdaa waan qaban karaa, horaan u socon karaa, hami iyo hiigsi sare ayaan leeyahay, bulshadeydana waan caawin karaa. sidaa haddaad tidhaahdo waxa forshuura inaad noloshaada hiigsi sare oo nololeed aad ka gaadhayso, foreverna ay kaa caawinayso sidii hamigaaga iyo hiigsigaaga nololeed aada u gaadhi lahayd. waayo qof hami iyo hiigsi sare leh baa tahay. aada iyo aad baad mahadsantihiin. block 1 amba trainingkeena koowaad ee ah tababarka qeybta koowaad ee ah dreamka, oo ah halku kambaniga iyo shaqaduba ka bilaabmaysa. halkaas ay noogu eeg tahay. aada iyo aad baad mahadsantihiin. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.